They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. الرحمن الرحيم المالك القدوس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسنا أفريد طبنات وكمل دروستي أنا وما عذرنا دروستي كصاب سن دعوة إسلامية وأن كجها لينا دعوة إسلامية مناهجته يوضع صحة إن مرتلو بهاي أنا كنت المام لين قار كم إذا ودوين كخردنا ودعوة إسلامية لمرسيي وحنا قدام بيسي منهج كما وضع قصة ليسن غلوية أما إفراط كأما حد جذب قصة ليسن أو ذلك المسلمين تجالسين تي باب كاز كشيء مركب وضع سي لبعتوين ك أكنت المسلمين توحى كم إذا سنصور شجني توحيدك قيمه سا ولو حد جذبه قفك مسلم كحرمة ولا لو حد جذبه إن كم إذا ميلها إداوعين ميلها كل إداوعين وحى كم إذا تحريف الجهاد جهاد كداوع وين أي كسو جاري منهج كنوع عصو كلاء أو حد جذب كأه ميلها فر بدن أو كم إذا شعيرة الإسلام وغالي أو قيمها بدن والجهاد في سبيل الله داوع فر بدن ayaa runtii maaragtay dadkaasu ay maaragtay u geysteen waxaana ka mid ah dhaawac loo geysanayo in jihaadka macnihiisa lagu soo koobo dagaalka keli ah ayadoo jihaadku uu macno badan yahay isagoo maraatib iyo anwaac fara badan uu leeyahay oo jihaadka lisaanka meesha laga saaro anwaacda kale meesha laga saaro jihaadu nafsi meesha laga saaro jihaadu shaytaan meesha laga saaro waxaasoo dhan inta meesha laga saaro in lagu soo koobo qitaalu kufaar dadka gaalada la dagaalam keli ah macnihiisa lagu soo koobo oo qofkii marka jihaad kala haya oo shaqo kala haya la qiimo tiro oo la macno tiro oo waxba laga soo qaadin inta noocaas maaragtay waa wax runtii aad u jira saxna ma aha jihaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala diinta iyo quraanka iyo axaadiista ayaa maaragtay ayaa noocadees macnada uu leeyahay in gaalada diinta la cadeeyo oo carabka lagula jihaado oo waxa ay sheegayaan maaragtay baadilnimadooda aad loo cadeeyaa waa jihaadkii koobaad oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dacwada ka bilaabay weeyaan waana jihaadku quraanku ku tilmaamay aljihaad alkabiir falaa tudil alkaafiriin wajaahidhum bihi jihaadan kabiira kaafiriinta adeecin baa la yidhi qur-aankaana kula jihaad weyn marka meeshuu ka bilowday jihaadkuba waaba halkaasba jihaadkan kale kaasuu difaacahayaa jihaadka dagaalka oo gacantaahi kaas ayuu difaacayaa kaasuu gabaad maaragtay u noqonayaa kaas ayuu maaragtay ayuu hirgelintiisa qayb ka qaadanaya marka jihaadka macaanidiisa oo lasoo gaabsho lagu soo gaabsho qitaal kufaar lagu soo gaabsha waa xadgudub loo geystay shaciiradan ballaaran oo macnaheeda lagu cayaaraya weeye runtii shaciiradan in lagu xadgudbo mar hore ayay bilaabatay oo qiimaheeda la tiro ama nooc quluwi ah oo ka badbadin ah la sameeyo barigii jihaad al-afghan uu socday ayaa waxaa dhacday dadka qaarkood oo jihaadka aad u taageersanaa dee kulli waa la taageersanaa laakiin ayagu xil gaara iska saaray inay ay taageeraan ayaa kelmooyin aan munaasab ahayn oo la oran karo nooc taxriifa ku jira bay ku dhaqaaqeen doctor cabdallah cazaam raximahullahu tacaala oo ka mid ah raggii ugu caansanaa oo jihaadka afghanistan u ololeyn jiray risaalo alifay cinwaankeedu yahay addifaacu can araadi lmuslimiin dadka muslimiinta araadida dhulkooda la difaacaa ahamu furuudi alacyaan markii xataa jihaadka dagaalka xataa la yiraaho maaragta darajada islaamka uu kaga jiro iyo furuudda islaamka iyo waajibaadka meesha kaga jira lafteeda in laga badbadiyaa lafteeda sax ma aha marka muslimiinta dhulkooda la difaacaa waa waajib weey laakiin in la yiraaho ahamu furuud alacyaan in horta fardacayn laga dhigo fardacaynkaas la yiraaho fardacaynka ugu koobaad weeye ugu muhiimsan weeye arrinka tacbiir sax ah oo daqiiq ah ma aha maxaa yeelay jihaadka xukunkiisa asaasiga ah fardu kifaaya weeye marna fardacayn buu noqdaa
marka haddii xataa fardu cayn uu noqdo maaragtay ahamu furuud alcayaa in la yiraa oo tawxiidkii baa fardu cayna baa ahamu furuud alcayaan ah sida macruufka salaada ku xigta wahaakada laakiin dadka lagu dhiirigelinhayo oo loo weyneynhayo oo maaragtay aada loogu ballaarinayo mindhaa baa laga waday laakiin hadda dadka lagu dhiirigeliya macnaheedu inay keento in xukunka booskiisa laga qaado boos kale la siiyaa shay munaasaba ma aha wuxuu kaloo sheikhaas uu yihi maaragtay haddii gaaladu dhul muslimiina ay soo galaan fardu cayn waxaa ku noqonaysa muslimiinta dhammaantood saasuu yihi muslimiinta dhammaantood bay fardu cayn ku noqonaysaa inay difaacaan saasna ma aha dadka wadankooda la yimid bay ku noqonaysaa fardu cayn soo garmaysa laakiin muslimiinta kale sida loogu baahdo iyo siday u kala dhow yihiin meeshaas usoo kala xigaan ayaa la fiirinaya marka tacmiimaadka iyo idlaaqaadka waxaa la iska idlaaqahayo oo maarata xamaasadu ay keenaysa mararka qaarkood xukunkii islaamiga ahaa oo laga baxo ayay keenaysaa waxaana xusuustaa maaragtay sheekh safar xawaali cafaahu llah washafaahu allah caafimaadiyo waa dadkii runtii aad ugu baraarugay qulugii baabkan ku salaysan oo maalan risaaladaas xataa cabdalla cazaam uu qoray iyo tacbiiraadkaas aad buu berigaas uga hadlay marka waxaan ka wadaa jihaadka oo maaragtay runtii maxaanku dadka lagu la fahamsiiyo ay diinta ka mid tahay qur-aanka sheegay axaadiista baa sheegaysa laakiin in dan gaara laga yeesho adoo dan gaara leh abuunbuunisid mas'ala min almasaa'il abuunbuunisid oo darajada ee laheed aa ka bixisid meel kale aa siisid haddii midaas diintii lagu cayaaro ayaa ka dhalanaysa dee jihaadka runtii keliya ma ahane qof kasta wixii la fiican marka qaarkood inuu buunbuuniyo ayaa dhacaysa maalan qof waxaa jira dacwada buu xamaaso u hayaa waana sax dacwada in xamaaso loo hayaa waa sax laakiin darajadeeda iyo axaadiisteeda iyo aayaadkeeda leedahay marka axaadiis aysan lahayn iyo aayaad aysan lahayn in la gaarsiiyo oo darajo aysan lahayn la gaarsiiyo oo waxyaalo fara badan laga horumariyo aysan ka horumarsanayn arrinkaasu waa quluwi buu keenaya dadka qaarkood in cilmiga la akhristo la taalacdaahi waa sax diinta ka mid tahay waana maaragtay maxaanku rahaa aad baa loogu baahan yahay axkaamtiisuna waa maaragtay marna waa waajib marna maaragtay qofa si meel u maraysaa laakiin in maaragtay alkhuruuj fii sabiilillah maalan dacwada oo kale aayaatuljihaad inta lasoo qaato khuruuj lidacwa lagu fasiro ama inta lasoo qaato aayaatuljihaad lagu fasiro alrixlatu fii talab alcilmi lagu fasiro ama cilmiga in loo baxo in la yidhaha maaragtay aayaadkii jihaadka halka la aadsiiyo munaasab ma aha marka dadkii ducaadda ahaa qof kasta meel buu ku fiican yahay ama qofka meel baa loo furaa oo ilah subxana wataala u waafajiyaa marka in qofku meesha asagoo markaa culayska uu saarahayo in waxaysan lahayn uu siiyo darajo aysan lahayn uu gaarsiiyo noocaas taxriif diinta ayaa ka dhalanaysa marka in la iska ilaashaa waa munaasab wey waxaa kaloo ka mid a runtii xadgudubka loo geystay jihaadka waxaa ka mid a in laga dhigay shay ku salaysan keliya aargoosi ku salaysan iyo iska celin oo aadaabtii akhlaaqda muslimiintu ee lahay lagu yaqaanay meesha ay ka baxdaba oo lagu dadaalo keliya waxyeele gaalka waxyeele gaalku ha cabaado gaalka maaragtay maxaanku rahaa yani maxaanku dhib gaarsii keliya in laga dhigo hadafka oo qofka muslimka ahi axkaamtii uu mathali lahaa uu ku socon lahaa aadaabtii lagu yaqaano uu ka tallaabsado asagoo yani oranaya wasiiladeedu waxaa weeye keliya inaan gaal wax gaarsiiyo sidan wax u gaarsiinayaa sax miyaa khalad miyaa ma aadaab baan ka tillaabsaday ma axkaam la iga baahnaan maarata aan ka gudbay la fiiran maayo walidaalika jihaadka islaamku isagoo nebiga sal ly slam uu wado oo nebiga ilaahay ah oo saxaabadiisu ay la wadaan oo dadka ugu daahirsan ahaa kuwa lala dagaalamayana gaalada ugu xumad ay yihiin haddana jihaadkaasi aadaab iyo akhlaaq buu lahaa muslimiinta wax lagu yaqaano oo maar loogu soo hirto ay ku caanbaxeen ayaa jirtay runtaa ka mida ballankoo la oofiyo ammaanada dadka qaarkood aan la dilin waxaasoo dhan bay maaragtay muslimiintu ay lahaayeen marka xataa jihaadkaasoo nebigu sal ly slam uu hogaaminayo ayaa wax kala caymin hayey oo maalan waxaa jiray zaman aan la dagaalamin ayaa jiray makaan aan lagu dagaalamin ayaa jiray dad aan la dilin ayaa jiray waxaasoo dhan
maaragtay axkaam uljihaad iyo nebiga sal alay waslam tacaamulkiisii bay ka muuqdaan iyo tacaamulkii saxaabadiisa iyo khulafaa raashidiinta sidaasay ahaan jireen marka laakiin dagaal aan waxba reebaynin oo aan zaman xurmaynaynin aan makaan xurmaynaynin aan qofna xurmaynaynin aan qofna baaqi yeelaynin kaas kii la arki jiray maba ahaba marka nimankan waxaa weeyaan xataa makan mukarama dhexdeeda bay dagaal ka sameeyeen dad ku laayeen garamaysid marka nin aan waxba xurmaynaynin ninkaasu jihaadkooda kii nabiga sal allahu alayh wasalam ma aha waa dagaal qof iska wada qof maaragtay keliya xanaaqsan oo maaragtay ujeeddo ah leh inuu qofkaas yani cadowgiisa keliya ka arguto bay tahay ujeedadiisu laakiin in wax ilaalinhaya oo axkaam iyo aadaab fiirin qofkan ma uu aha waxaa kaloo ka mid a taxriifka lagu sameeyey jihaadka in aan la ilaalin axkaamtiisa loo yaqaano alaxkaam alwadciya saa garanaysaan axkaamtu waa labo axkaam takliifiya iyo axkaam wadciya takliifiyada waxaa weeyaan waxa waajibka ah waxa maarata xaaraanta ah waxa makruuha waxa mustaxaba waxa xaalka ilaa akhirihi axkaam takliifiya la yidhaahaa kan waxaa la yidhaahaa alaxkaam alwadciya waa maalan shayga waajibka ah goorta waajib noqonayo shuruud sixa iyo shuruud alwujuub iyo waxaan fasaadkiisa iyo budlaankiisa ayay ka hadlaysaa marka in la yidhaaho laga soo qaato yani alxukmu takliifi oo maaragtay jihaadku waa waajibkaas hore keliya laga raaco oo aan la fiirin axkaamtii kale oo la xiriirtay maalan salaada waa waajib laakiin wujuubkeeda waqti buu gelahayaa shuruud maarata baa loo baahan yahay ku ansaxayso shuruud bay ku waajibaysaa maalan maxaanku tahaara loo baahan yahay dumarka aan daahirka ahayn maalan oo dhiigga qaba oo kale salaada maxaanku lagama rabo ilaa akhirihi waxbaa jira marka laakiin haddii laga raaco salaada waa waajibka kale yani laga raaco oo keli ah oo maaragtay waxaa loo yaqaano alwujuub almutlaqa laga raaco oo la yidhaha markii waktiga la gaaro qof kasta waa inuu tukadaa waa in la yidhaha maarata haddii la yidhaaho ama xataa wakti aan loo fiirinba soo garanaysid haddii midaas fawda ka imaanaysa marka waxaa loo yaqaano alwujuub almutlaq wujuubka mutlaqa ah salaada waa waajib soomka waa waajib jihaadku waa waajib sakada waa waajib waxaasoo dhan waa wujuub mutlaqa weeye laakiin hebel bay ku waajib tahay waqti hebel bay waajib tahay shuruudaas baa laga helay waxaas baa laga waayey midaas in maaragtay dhex galo baa loo baahan yahay marka jihaadkii in laga eego keliya wujuubkiisa caamka ah halkaa lagala boodo oo asbaabtiisa aan la fiirin goormuu noqonayaa goortii hadda ma jirtaa maaragtay shuruudii qofka uu ku waajibahay shuruudii ma jirtaa mawaanic ma jirtaa diideysa garamaysid marka in alwujuub mutlaqa laga eego oo wixii kale oo dhan meesha laga tirto waxay keenaysaa in wixii la sameeyo waqti aan munaasab ahayn in qof uusan ku waajibin lagu waajibo ka imaanaysa maalan waa taqaanaan dhaxalka oo kale asbaabo waxaa jira la isku dhaxlo oo qofkii qof dhalay labadii isdhashay way isdhaxlaan laakiin hadduu qofkii qofka dilo ama aabihiisuu dilo asagoo maarata dhaxalkiisii raba garmaysid dhaxalkii ma uu qaadanayo marka qofkuu dhaxli lahaa inay isdhaleen oy qaraabo isla yihiin oo isdhaleen waa sabab ay isku dhaxlaan maanic baa jiro ah qofkiibuu dilay garamaysid maalan qofkii qof dilaa waa in la dilaa qisaas baa jirta waajib noqonaysa laakiin hadduu maarata aabbuu wiilkiisa dilo lagama qisaasi karo loo qisaasi maayo soo garamaysid maanic baa jira marka waxaa weeyaan haddii asaas loo fiirin oo waxa magaca kore laga abbaaro keli ah fasaad baa ka imaanaya fashal baa ka imaanaya marka jihaadkiina waa noocaas oo kale oo wujuubka mutlaqa bay nimankaanu ka eegeen markaasay meel aan munaasab ahayn iyo zaman aan munaasab ahayn iyo dad aan munaasab ahayn bay wixii ku samaynayaan tan kale waxaa loo baahan yahay in la fahmo maxaanku iraahaa axkaamta diinta waajibaadka qaarkood waxa cayinaya oo waqtigooda goynayaahi waa xarakat alkown ama falagaa goynaya maalan salaada waqtigeeda qoraxda iyo habeenka socodkooda ayaa kontroolahaya ayagaas ayaa xadidahaya waqtigaa waa la gaaraya garamaysid marka waqtiga salaada iyo waqtiga soomku imaanayo xarakada qamarka iyo maaragtay iyo qoraxda iyo socodka falaga baa ilaah subxaana wa tacaala ugu talagalay
laakiin jihaadka falaguma xukumo oo maalan bishii jihaadka dhalatay ama saacadii maaragtay jihaadka maxaankoo la gaaray ma ay jirtee asbaab waa in la helaa waa in shuruud la helaa waa in mawaanic laga badbaadaa garamaysid xataa sababka keliya xataa kaafi maahane waa in shuruudii la helaa maalan bishii ramadaan baa gashay bisha ramadaan markay gasho wujuubkii soonka imaanaya laakiin qofka musaafirka waajib kuma ah garamaysid qofka jiran waajib kuma ah wahaakada marka waxa weeyaan sabab ka mid a asbaabta jihaadka keenta ayaa jirta keliya looma jihaado muslimiinta la dhibhayaa keliya looma jihaado qof muslimaha la dilay keliya looma jihaado waxaa kale loo baahan yahay haddii loo jihaadi lahaa hadda nabiga sal sl markuu maka joogay dhibku ma yarayn dadku waa maaragtay waa la dhibahayey dad saxaaba baa maaragtay ayaa meesha lagu dilay nabiga sal slam culeys badan baan saarnaa ilaa saxaabadiisa uu yidhi xabashay aada marka dhibku waa jiray maxaa loo jihaadi waayey marka waxaa weeyaan dhib baa jira muslimiinta la duleysanayaa waxbaa dhacay sababtaas darteed keli ah haloo jihaado kaafi maahane shuruudii kale ay ka mid tahay wixii in awood loo leeyahay in wixii laga soo bixi karo in wixii ay ku jirta maslaxad baa loo fiirinaya maaragtay maanican buu jiraa asna waa la fiirinayaa marka waxay nimankan ku kacan waxaa weeyaan mararka qaarkood sababta keliya ayay fiirinayaan war muslimiinta asbaabta dhibaatada haysata waa soo socotay sidii looga bixi lahaana dacwadan iyo saxwadanba waxay u istaagtay weeye laakiin in dagaal looga baxayo in go-aankaas la qaato oo nimankan ay bilaabeen arrinkaas arrin runtii sax ah ma uu ahaa maxaa yeele waxyaalihii kale oo loo baahnaa ayaa meesha ka maqan marka gaalaa soo gashay gaalaa joogta gaalaa awood leh gaalaa waxdishay gaalaa meel qabsatay keli ah maaragtay jihaadku kuma uu maarata waajibe wuxuu ku waajibayaa shuruudaha kale oo ku xiran maalan waxaa garanaysaan maalan wax kale iska dhaafe haddii xataa xaakimkii waddanka haystay iyo dowladdii ay gaalo noqdaan oo gaalnimo cad kufri bawaax ay la yimaadaan oo burhaan loo hayo culammadu waxay leeyihiin marka lagu jihaadahayo lagu baxayo la iska qaadahayaa shuruudo kale loo baahan yahay shuruudo kale oo awood iyo maslaxad iyo tabar iyo waxaaso dhan baa la fiirinaya garanaysid keliya waa la gaaloobay meesha lagu kala kaco la isku baabao arrinkaas arrin saxa ma aha marka waxaan ka wadaa nimankani jihaadka siduu ku waajibahayey ayay ku cayaareenoo way ku tasarufeen way khaldeen markaasaa dhibaato fara badan ayaa meesha ayaa ka dhacday tan kale waxaa waye waxay kaloo ku tasarufeen jihaadka maadaama go-aamintiisu ay tahay shay u baahan in duruuf fara badan isku aado salaada keliya salaadoo kale maaha salaad waqti baa xadida soonka bil baa xadidaysa wahaakada zakada nisaabka iyo xawlka baa xadidaya xajka waqti macayan leeyahay wahaakada laakiin jihaadka asagu duruufo isku aada oo isku xirxirma oo nooc ijtihaad ah iyo nooc aragti ah iyo nooc fiire ah u baahan ayuu maarata buu ka dhalanayaa walidaalika markaa fiirisid asiira nabawiya ama fiirisid taariikhi yani taarikh saxaaba a fiirisid ama taarikh alkhulafaa iyo guud ahaan muslimiinta maxaanku u rahaa taariikhdooda markaa fiirisid waxaa arkaysaa duruufaha marra way isku aadahayaan marra isku aadimahayaan nabigu sal alay wasalam inuu dagaal isagoo dhiban oo dadkiisa la leynhayo inuu dagaalamo waa loo diidanaa ma dhib baa yaraa ma dhibkaa maqnaa maya maxaa loogu diidan yahay duruuftan isku aadanin macnaheedu wey kadibna waa loo idna idan keliya kadibna waxaa la amray inuu wixii la dagaalamo keliya ula dagaalamo kadibna waxaa la amray inuu maaragtay dagaal caama waxaa arkaysaa maaragtay yani alkhulafaa raashiduun mar baa laleeyahay hala joojiyo dagaalka hala joojiyo jihaadka laleeyahay la amrhaya cumar radi allahu canhu markuu khaliifada ahaa maaragtay jihaadkii ka socday ardu afriqiya hala joojiyuu yidhi meel buu ku ekeeyey in kala dhaafana waa u diiday in badda lagu duulo ama badda dhexdeeda laga dagaalamo cumar radi anhu waa diidi jira ma ogolayn ayadoo axaadiistu ay ammaanayso alghaswu fi lbaxri oo fadli gaara uu leeyahay ma uusan ogolayn garamaysid maarata saxaabigii la oran jiray alcalaa ibn xadrami oo baxrayn ka ahaa amiirka mar intuu khilaafay cumar radi allahu canhu
yani amarkiisa khilaafay ayuu duulaan qaaday amar waa casilay garanmaysid marka waxaa weeye jihaadka maamulka muslimiinta ayaa iskale oo duruuftiisa fiirinteeda inay isku aadan tahay waxaa ka dhalan karaa ijtihaadka noocaas oo kalea buu ku yimaadaa jihaadkuy maaragtay waa la adimay iyo bishiiba dhalata keli ah oo kale maba ahaa baabkaas maba ahaba marka nimankan jihaadka waxay ka dhigeen inuu yahay waa la adimay oo kale bay ka dhigeen wax kale aan loo fiirinaynin waxay kaloo maaragtay ay ku khaldameen maaragtay jihaadka waxay u maleeyay inuu yahay wax iska socoto ah ha iska socoto ah oo aan duruuf loo eegeynin aan tabar loo eegeynin aan loo eegeynin maslaxad saasna ma aha maaragtay tacbiir baa jira ama maaragtay wax athar oo kale ah aljihaadu maadi ila yowm alqiyaama baa jirta culammadu ay qoraan oo lagu qoro kutub alcaqiida maxaa loola jeedaa waxaa lagu radinhayaa firaqda daalada ah oo jihaadka islaamku inuu istaago wuusan socon go-aankeeda gaaray maalan shiicada oo kale waxay yidhaaheen jihaad maba jiraba ilaa mahdigu uu soo baxo ama ilaa la helayo alimaam almacsuum jihaad maba jiraba oo wixii dowlado ahaa oo khulafa maaragtay kale soo baxay oo umawiyiin ahaa ama cabaasiyiin ahaa ama wixii ka dambeeyey o dhan ba waxay kuleeyihiin waxoodu jihaad maba ahayn jihaadka saxda aan keliya wuxuu imaan karaa markii imaam macsuuma la helo marka taasa lagu radinayay waxaa kaloo lagu radinayay khawaarijtu aaminsanaa maaragtay jihaadka waxaa jihaadi karaay maaragtay imaam caadil ah oo saas ah oo saasa weeye imaamka muslimka oo faasiqa ama jaa'irka oo kale ah jihaadkiisu sax maaha oo lala jihaadi maayo marka yani hadi lfiraq yani kuwa noocaas oo kale ah oo jihaadka shuruudo kale u dejistay ama joojiyey ayaa lagu jawaabahayay oo waxaa lalahaa jihaadku waa soconayaa maca kuli cadlin wa faajir qof kasta oo maaragtay imaam oo muslimiinta madax u ah ama ha ahaado caadil fiican ama ha ahaado nin iska faajiraho iska faasiqahe waa lala jihaadaya maslaxadda marka jihaadku waa maslaxad caamaho qofka madaxda ah nooca uu yahay iyo cadaaladiisa iyo fisqigiisa kuma uu xirna taas baa baa loola jeedaa waxaana lagu radinhayaa firaqda noocaas oo kale ah oo jihaadka u shardiyey in imaam macsuuma la helo ama u shardiyey in imaam caadila la helo baa loola jeeda macnaheedu maaha jihaadka waa soconaya sidii salaada oo kale weeyo ma kala go-ahayo duruuf kasta ha timaado waqti kasta ha la joogo waa in la dagaalama saasna ma aha dagaalku axkaam buu leeya aadaab buu leeya duruuftiisa waa in la helaa haddii xataa asbaabta la helo waa in shuruudii meesha laga helo mawaanicdiina waa in maaragtay la waayo wey waxaa kaloo jirtaba oo nimankan ama maxaanku rahaa yani manhajkan ifraadka ku salaysan uu ku dhaqaaqay waxaa weeye marka qaarkood asbaabta ayagaa samaynhayaba meeshiio iska xasiloon oo xoogaa noloshu iska macquul tahay oo dhib badan uusan jirin ayagaa dhibka abuurahayaba oo culayska keenahaya markay culayska keenaan kadib bay leeyihin haddana maxaanku rahaa hala dagaalamo si culayskan la iskaga qaado war culayska inaa keenta laftaa horta yaa kuu idnayba inaa culayskan abuurtid oo sababkan adiga aad soo siyaadisid yaa kuu idnay marka sabab lagu dagaalamo oo muslimiintu ay maxaanku raha ku dagaalamaan bay abuurahayaanba maaragtay wayna ku caddahay kutubada ay qoreen ama ay alifeen way ku caddahay in khidada iyo barnaamijkooda ay ka mid tahay in muslimiinta la dagaalgeliyo laguna dagaalgeliyo in gaalada loo soo jiito dhulka muslimiinta la keeno oo halkaa uu dagaal ka dhaco oo waxay ku leeyihin dadka muslimiinta hakici ay maayaan dagaalama ay maayaan ilaa dagaalku uu guryahooda yimaado marka gaaladan soo jiidaynaa waan soo maxaanku rahaa kaxaynaynaa waan soo juqajuqaynaynaa ama waxaan ku samaynaynaa waxaa la yidhaaho maaragtay istinfaar maaragtay waxaan ku samaynaynaa waxaa la yidhaaho istifzaaz marka waan keenaynaa si gaaladu marka ay ku imaan lahay waddada muslimiinta oo halkaas ay ku dagaalami lahaayeen baan falankeeda galaynaa saas bay ku caddahay kutubada laga qoray ama ay qoreen ayaa waxaa ku cad in barnaamijkooda uu ka mid yahay in muslimiinta wadamadooda gaalo la keeno oo markaas si ay u jihaadaan muslimiintu marka wax la yaabla weeye sababtiiba adigaa samaynay dhib aan jirin ama hajiro laakiin aan darajadiias aan lahayn ba adigu gaarsiinaysaa
marka waxa weeyaan waa runtii fikrad khaldan oo aad u khatiir ah weeyaan oo diinta Ilaahay aan ka mid ahayn muslimiintu meel ay degan yihiin in gaalo la keeno gaalo inay timaado sabab loogu noqdo si gaaladaas loola jihaado oo haddii la jihaadi waayana haddii laga adkaan waayana see la yeelayaa muslimiintu dhulkooda iyo meesha ay degan yihiin oo caruurtooda iyo dumarkooda iyo ugxantooda ay taalo in dagaal uu ka qarxo arrinkaas arrin runtii sax ma aha marka iska dhaaf asbaabtii u jirtee in ayagu asbaabta ay sameeyaan lafteeda waa bidacda ama waxaa la oran waxyaalaha diinta maaragtay jihaadka khilaafsan oo ayagu ay keeneen oona ku cad buwaagta laga qoray ama ayagu ay qoreen iyo hadaladooda weeye marka qofka oranaya jihaad baan abuurahayaa anaa samaysanaya oo sidii loo jihaadi lahaa falankeedan galahaya waxa la yaab la weeyaan waa sidii qof oranaya oo kale maaragtay si aan zaka u bixiyo baa xoolo soo daynsanaya oo kale weeye galatay marka waxa weeye wax hadaysan kugu waajibinin la iskuma waajibiyo marka jihaadku wuxuu ku waajibi lahaa iyo duruuftiisii Ilaahay subxaanahu wa tacaala koonka asaga maamule si un bay u imaanaysaa si un bay iskugu aadaysaa laakiin in maaragtay la farsamaysto oo qofkii asagu asbaabtii uu samaysto si asagu u dagaalamo arrinkaas runtii arrin sax ah diini ahaan iyo sharci ahaan sax ma aha tan kale waxaa weeye markaa go-aanka qaadanaysid yaa mathalaysaa meelaha ay khaldeen waxaa ka mid nimankaani oo jihaadka ay ka taxriifiyeen jihaadku waa maslaxadda caamka muslimiinta maslaxadda caamka muslimiinta dadka muslimiinta maamulkooda ayaa hayn jiray isagaa kontrooli jiray mar wuu istaajinayaa mar wuu socodsiinayaa mar sulxi iyo hudno iyo heshiis buu galahayaa isagaa maamuli jiray koox ma maamuli jirin fardina ma uusan maamuli jirin marka in kooxii muslimiinta masiirkooda ay maamusho oo muslimiinta ay dagaal geliyaan bal ay yiraahdaan wadamada muslimiinta gaala keenayna si gaaladaas ay intay u dhibaan muslimiinta marka muslimiintuna ay kacaan fikradda noocaas oo kale oo khatarta ah oo in maarta qofka muslimka la dagaal geliyo oo gurigiisa lagubo la qaxiyo soo u dagaalamo fikraddaas runtii fikrad diini ahaan sax ah ma ay aha waxa weeyaan asal ahaan had wax ay xaq u leeyihiin inay maamushaan ama ay ka taliyaan ma ay aha waxayna ka mid tahay taxriifka weyn runtii oo mas'alada jihaadka gaaray in marka laga waantoomo oo qofka muslimka diinta Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu cagta u dhigo diinta Ilaahay baa iskale haddii gaalo maaragtay ay maxaanku raahaa ay maaragtay muslimiinta dhibahayn sida looga baxo Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaana baray axaadiista iyo quraanka iyo siirada iyo khulafaa rashidiinta wadadooda ayaa maaragtay laga heli kara sida looga baxaye adigu siyaadiga ku gaara oo adiga xamaasadaada iyo fikradaada iyo barnaamijkaaga u gaarka ah samaysatay looga bixi maaye adiguna dambi baa ku helaysaa muslimiintana waa ku halaagaysaa waana waxa hadda xaasilka weeyaan oo nimanka dagaalka ay wadaan ama maaragtay ay wadeen welina ay wadaan maxaa laga helay lagu dhaamaartay laga dheefay oo ummad baaba'day maaragtay aalaaf dhimatay ayagoo dambi kasbaday baa laga dheefay Ilaahay subxaanahu wa tacaala toobada hana waafajiyo wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. They are mentioned in the Holy Quran. La ilaha illa ar-Rahman. La ilaha illa ar-Rahman. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus.